kooxo hubeysan ayaa haweeney qaad iibisa iyo askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya dil iyo dhaawac waxa ay ugu geysteen agagaarka isgoyska Baar Ubax ee magaalada Muqdisho. Maxamed Axmed Jimcaale ayaa warkan faahfaahinaya. sida uu ugu waramay idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho qof goobjooga ah kooxo hubeysan oo la socday gaari nooca raaxada ah ayaa rasaas waxay huuyeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa kabar qaadka lagu iibiyo oo ku yaala isgoyska Baar Ubax ee degmada Howlwadaag. waxaana weerarkaasi la sheegay inuu ka dhashay dhimashada haweeney qaad ku iibinaysay nawaaxiga isgoyska Baar Ubax iyo askari ka tirsanaa ciidanka dawladda Soomaaliya halka askari kale oo isna goobta ku sugnaa dhaawac uu ka soo gaaray. xaalad dilay naan haweeney oo jaaqado iyo nin askari kala fadhiyeen iyo askari kale askariga dhaawac lagu qaaday maamada oo jaaqado kala fadhiyeen iyo askari kale dhismeed ka dalaqay way dhimatay way isla fadhiyeen kala sheekaysanayeen haddana ninka kale dhaawac loo qaaday gooska Baar maya koox weesna dhahay ciidan badan soo gaareen xabaday ku fureen dadkii mootooyinka la celinayay hadda mid kala qaaday hadda way dhowreen laakiin dadka caadi kala socdaan kala furwado. warar kala duwan ayaa waxa uu ka soo baxaya kooxaha falkaasi geystay. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ay labisnaayeen dareeska ciidanka dawladda Soomaaliya ayna siteen qoryaha fudfudud halka warar kale ay tilmaamayaan in kooxahaasi bastoolada ay ku hubeysnaayeen isla markaana bastoolado ay tacshirad ku huuyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugnaa kabar qaadka lagu iibiyo oo ku yaala nawaaxiga isgoyska Baar Ubax ee degmada Howlwadaag. weerarkaasi ayaa waxaa qasaaro uu ka soo kala gaaray ciidamadii la weeraray iyo haweeney qaad ku iibinaysay isgoyska Baar Ubax taasi oo la sheegay inay ku geeriyootay iyadoona goobta ay wax ka dhaceen saacado laga dareemayay jawi aad u qasan isla markaana ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ay halkaasi gaareen.